soo dhawaada jaalayaal muuqaalan hore idinku soo gudbiyay waxaan idinku ballan qaaday inaan idin soo gudbin doono challenge uu Blake la sameyn doono Mr Beast la siiyo Janice uu muuqaal kale kaga qayb galo wuxuuna doortay inuu mar kale ku soo laabto una muuqaal kale qayb ka noqdo waxaana muuqaalkaas la soo deyn doonaa bisha 2 ama February aniga ayaan idin ballan qaaday inaan degdeg idinku soo gaarsiiyo muuqaalkaas meeshan kore ayuu idinka soo muuqan doonaa haddaadan hore u daawan hadda soo daawo si muuqaalkan aad u fahanto maanta Blake wuxuu mar kale wajihi doonaa challenge ka adag kuwii uu hore ugu guuldareystay waxa kaliya ee uu rajeynayo waa inuu guuleystaa si uu mar farxad ugala tago meeshan intaynan u guda gelin muuqaalka fadlan YouTube-keena subscribe saaro mahadsanid Lamborghini-gan qaaliga ah waa furaha guusha Blake ee la rabo inuu ka difaacdo challenge-yadan kala duwan waxa furaha gaariga farta laga saaraa Blake waxa sidoo kale meesha diyaar ku ah askar ku hubeysan qoryo kala duwan oo diyaar u ah inay 10,000 oo xabadood ay ku ridaan Lamborghini-gan si ay u burburiyaan Blake waxa la siiyaa 24 saac si uu soo iibsado una dhiso wax uu xabada kaga difaaco gaariga waa kan qorshaha difaaciisa wuxuu gaariga hordhigi doonaa bulkeetiyo iyo haamo ay biyo ku jiraan kontaynaro uu ka buuxiyay waxyaabo adag ayuuna sii hordhigi doonaa si aysan xabada uga dhax bixinna bulkeeti ayuu haddana ku soo xiri doonaa kadibna wuxuu ku horjaraa gawaari ciladaysan wuxuu isla markii u cararaa inuu soo iibsado waxyaabaha uu u baahan yahay $78,000 ayuuna ku qarash gareeyay wuxuuna u soo raray goobta uu ku dhisi lahaa waxaana bilaabatay dhisida difaaca marka askarta la weydiiyo ma laga yaabaa in containerkan idin celiyo waxay ku dhahaan maya 18 saac ayaa u hartay welina waxa socda dhismaha difaaca gaariga Mr Beast markuu Blake u sheego in askarta ay ku dhaheen containerkan nagama celinayo inaan gaariga wax gaarsiino wuxuu sii adkeeyaa gudaha containerka isagoona ku cabeynaya biro iyo waxyaabo kala duwan oo adag ilaa suuxii xigay waxay ku mashquulsanaayeen dhisida qorshihiisa wuxuu safka hore dhigay bulkeetiyo si ay ugu yaraan u celiyaan qayb xabadaha ka mid ah intaan askarta loo fasixin inay xabadaha ku furaan waxaa loo sheegaa in waxa uu difaacayo uusan kaliya ahayn gaariga ayna sidoo kale difaac ka rabto $100,000 oo gudaha gaariga ku jirta 24 saac ayaa soo ilaatay waana waqtigii la fasixi lahaa askarta waxaa amar la siiyaa askarta iyagoona si isdaba joog ah ugu ridaya rasaas gaaraysa 10,000 oo xabo weliba qoryo kala duwan ayay ka tuuri doonaan challenge-yada kale ee Blake laga qariyay waxaa ka mid ah in gaariga laga soo tuuri doono meel dhulka u jirta 100 feet lagana rabo inuu dhulka ka difaaco si uusan u burburin gaariga in gawaari hol ayaa lagu sii daayo gaariga kaas oo uu muuqaalkii hore ku guuldareystay inuu ka difaaco iyo tareen laga rabo inuu ka difaaco si uusan u burburin gaarigiisa markay dhamaadaan 10,000 ee xabadood waxay u ordaan inay soo hubiyaan in gaariga uu badbaaday iyo in kale waxayna arkeen inuu badbaaday waxaa loo soo bandhigaa challenge-ga xiga waxaana wiishkan lagu xiri doonaa gaarigiisa 24 saac ayuu haystaa waxaana laga rabaa inuu dhulka ka sameeyo difaac gaariga ka ilaalin kara burbur uu ka naxaa maadaama uu waxyaabihii hore u soo gatay oo idil aysan markaan anficin haddaba waa kan qorshaha difaaca ee Blake wuxuu isku soo wareejin doonaa containero wuxuuna qaybta dhexe gelin doonaa barkimo joodariyo iyo waxyaabo suufaf ah wax walba uu hore u soo iibsadayna banaanka ayuu iska geyn doonaa markii uu soo adeegtay wuu iska baxaa maadaama uusan seexan 24 saac ee la soo dhaafay balse waqti badan ayuu hurdayay wuxuuna soo laabtay isagoo kaliya ay u harsan tahay 5 saac 24 saac markay dhamaatayna waxaa la sii daayay gaarigii waxayna u kala carareen inay hubiyaan muuq ahaan wuu badbaaday waxaana la tijaabiyaa haddii uu kacayo wuuna shaqeeyay markan waxay u gudbayaan challenge-ga uu ugu neceb yahay waana gawaarida gubanaya taas oo uu hore ugu khasaaray waxaana markan lagu sii deyn doonaa 10 gaari oo gubanaya wuxuu habeenkii oo idil waqtigiisa ku qaatay inuu aruuriyo suufafkii uu hore u isticmaalay subaxii wuxuu diyaar u ahaa inuu qorshihiisa dhiso waa kan qorshihiisa difaaca wuxuu qorshaystay inuu container ka jaro qaybta hoose kadibna uu ku daboolo gaariga kadibna uu 2 container uu isdhinac dhigo sidoo kale dusha sare uu ka alxamo si gaarigii kor ka soo dhacay uusan u dhaxgelin oo uu dhinac u dhaco wuxuuna containerada ka saaraa wax walba oo alwaax ah si aysan mar kale u sababsan kadibna waxay gaariga ku daboolaan containerka labadii container kale ayayna isku alxamaan waqtigii ayaa soo ilaaday waxaana la gaaray waqtigii lagu sii deyn lahaa gawaarida gubanaya hadday dhacdo inuu gaariga gubto wuxuu meesha isaga tegi doonaa isagoo faramaran isku dayo isxigxigay kadib midkii ugu dambeeyay ayaa ku dhacay wuuna u badbaaday gaarigiisa wuxuu ka soo badbaadsaday 10,000 oo xabadood 100 feet iyo gawaari holcaya waxa kaliya u harsan waa tareenka 24 saac ee diyaar garowga ayaa u bilowday wuxuuna ku talagalay in wadada uu tareenka mari lahaa uu waxyaabo culus dhigo si uusan uga soo gudbin
si daran ayuu uga taxadiray. Waxyaabo aad u adag ayuu waddada kaga xiray. Tareenka inta dib loo qaado ayaa si daran loo soo kaxeeyaa. Wuxuuna bilowga hore burburiyaa waxyaabihii uu Blake difaaca ka dhigtay, balse awood uma yeelan inuu soo gaaro gaariga Blake. Sidaas ayuuna ugu dambeyn ku gaaray guul uu ugu yaraan sugayay muddo ka badan 2 sano iyo 3 iskuday oo kala duwan. Fadlan muuqaalka noo like garay. Mahadsanid Jaalle.